بسم الله الرحمن الرحيم رمضان مبارك كسو دوادا مركله iyo barnaamijkii xulashada wararka qodobada saakay barnaamijka aan idin kugu haynana waxa kamid ah madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka oo sheegay in Iran ay ka biyo diidsan tahay waxa uu ku tilmaamay xariiqaha cas ee Trump uu dhigay isla markaasna aysan jirin wax ilaa ya hadda la isku afgartay hadalkan ayuu jeediyay saacado uun kadib markii wafuud ka socota labada dhinac ay wada hadal ku yeesheen magaalada Geneva Mareykanka oo ku cadaadinaya Koonfur Afrika inay ka laabato dacwada dambi dagaal ee ay ka gudbisay Israa'iil Hamas oo ugu baaqday waxa loogu yeero golaha nabadda ee Trump uu hogaamiyo in uu wax ka qabto xadgudubyada xabad joojinta ee Israa'iil ay ka wado marinka Gaza wasiirka maaliyadda Israa'iil oo ku baaqay in Gaza la qabsado isla markaasna looga sameeyo deegaameyn dadka Israa'iiliyiinta hogaamiye sare oo ka tirsan mucaaradka Israa'iil oo arrintan si adag u cambaareeyay isagoo xukuumadda Netanyahu ku tilmaamay mid arxan daran oo dambiile ah madaxweynaha Ukraine oo isna si adag uga hor yimid cadaadiska Trump ee ku aadan in uu uga tanaasulo dhul Ruushka dhamaan wararkan iyo waliba qodobo kale oo faahfaahsan iyo wixii warah ee soo kordha intaynu hawada ku jirno ayaan idinkugu soo gudbinaynaa barnaamijka xulashada wararka soo dhawaada markala daawadayaal si aad ula socoto una hesho wararkan barnaamijyada iyo macluumaadka aynu halkan ka soo gudbinayno haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada amaba horay aadan ugu xirnayn hadda ku soo biir waadna ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka mar kale waxaan idin leenahay Ramadaan mubaarak maanta waxaynu ku bilaabaynaa xagga Gaza iyo war weyn oo ka soo yeeray ururka Hamas maalinta bari oo Khamiista ah magaalada Washington waxa ku kulmi doona golaha loogu yeeray golaha nabadda ee marinka Gaza arrimihiisa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu sheegay inuu ka shaqeyn doono ilaa iyo 19 wadan ayaa la filayaa madaxdoodu inay ka qayb galaan wada hadaladani laakiin iyadoo la gaaray xabad joojin tan iyo bishii Oktoobar ee sanadkii aynu ka soo gudubnay Israa'iil waxay sii wadaa xadgudubyada ka dhanka ah heshiiskaasi rasaas joojinta haddaba Hamas ayaa war arintani ka soo saartay telefishinka Al Jazeera ayaa xalay baahiyay in ururka Hamas uu ugu baaqay waxa loogu yeero golaha nabadda ee uu aas-aasay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump inuu cadaadis saaro Israa'iil si ay u joojiso xadgudubyada joogtada ah ee ka socda Gaza Hazim Qasim oo kamid ah afayeenada Hamas ayaa sheegay in golaha looga baahan yahay inuu qaado tillaabooyin dhab ah oo lagu qasbayo Israa'iil in ay joojiso xadgudubyada xabad joojinta wuxuu sheegay in dagaalka ciribtirka ee Gaza wali uu socdo isagoo xusay dilal barakac go'doomin iyo macaluul aan istaag lahayn ay socoto dhanka Israa'iil wasiirka maaliyadda ee mayalka adag ee Israa'iil Bezalel Smotrich ayaa mar kale ku baaqay in la qabsado marinka Gaza lagana dhiso maamul military iyo deegaameyn looga samaynayo Israa'iiliyiinta sida uu daabacay wargeyska Maarif ee ka soo baxay Israa'iil Smotrich ayaa shir jaraa'id oo uu qabtay waxa uu ku sheegay in ay tahay in la dhiirigeliyo waxa uu ugu yeeray barakac ikhtiyaari ah oo ay sameeyaan Falastiiniinta Gaza hadalkiisa ayaa imaanaya inkastoo uu jiro qorshaha madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ee lagu doonayo in si buuxda nabad loogu soo dabaalo marinka Gaza geesta kale hogaamiyaha mucaaradka Yair Lapid ayaa si kulul uga jawaabay hadalka ka soo yeeray Smotrich waxaana uu ku tilmaamay inuu yahay nin marawaal ku nool wuxuu xusay in xaaladda dhabta ee Gaza ay muujinayso joogitaanka xoogagga Hamas iyo doorka hay'adaha Falastiiniyiinta ee maamulka xuduudaha Lapid ayaa sidoo kale wuxuu weerar ku qaaday xukuumadda ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu isagoo ku tilmaamay waa sida uu yiri mid arxan daran oo dambiile ah isla markaasna wuxuu ugu baaqay mucaaradka inay isu diyaariyaan doorashooyinka guud ee la filayo inay dhacaan bisha Oktoobar ee sanadkan haddii aysan doorashada markaasi dhicin in la soo hormariyo sida ay muujinayso daraasadii ugu dambeysay ee uu sameeyay wargeyska Maarif mucaaradka Israa'iil ayaa haddii doorasho la qabto maanta waxay heli karaan ilaa iyo 60 kursi oo kamid ah
baarlamaanka Israa'iil oo ka kooban 120 kursi. dhanka Netanyahu iyo xulafadiisa ayaa waxaa la sheegayaa inay heli karaan oo kaliya 50 kursi. xukuumadda Israa'iil waxaa lagu soo dhisi karaa haddii isbahaysi ama xisbi uu helo 61 kursi oo baarlamaanka ka tirsan. waa tahay bal xagga Ukraine aynu eegno. habeennimadii xalay war weyn ayaa ka soo yeeray madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky. Zelensky ayaa waxa uu diiday cadaadiska la sheegayo inuu ka imaanayo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, isagoo cadeeyay in dalkiisa uusan ogolaan doonin heshiis nabadeed oo ku salaysan in Ukraine ay ka baxdo gobolka Donbas ama ay gacan geliso Ruushka. waraysi uu siiyey shabakadda wararka Mareykanka laga leeyahay ee Axios, Zelensky wuxuu farta ku fiiqay in shacabka Ukraine ay diidi doonaan heshiis kasta oo siinaya guul madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin. wuxuu ku dhaliilay Washington inay cadaadis saarayso Kiev halkii ay saari lahayd Moscow, isagoo sheegay inaysan cadaalad ahayn in Mareykanku si fagaara ugu baaqo Ukraine inay tanaasul samayso. Zelensky waxa uu ku nuuxnuuxsaday inuu rajaynayo in hadallada Trump ee ku saabsan inuu mas'uul ka yahay tanaasul kasta ay yihiin xeelad siyaasadeed oo kaliya, balse aysan ahayn go'aan rasmi ah. wuxuuna carabka ku adkeeyay in nabad waarta aan lagu gaari karin inta guul la siinayo Putin. madaxweynaha Ukraine ayaa sheegay in dalkiisu diyaar u yahay in uu joojiyo weerarada haddii Ruushku uu joojiyo sidaasi si lamid ah, isagoo muujiyay rabitaanka Kiev ee ah heshiis degdeg ah oo lagu soo afjarayo colaadda. hadalladan ayaa imaanaya iyadoo wafdiye ka socda Ukraine iyo Ruushka ay ku kulmeen maalintii shalay magaalada Geneva si ay uga wada hadlaan wadahadaladana looga gaaro guul la xiriirta sida dagaalka lagu soo afjari lahaa. si gaar ah waxaa loo sheegayaa in lagu muransan yahay khilaaf weyn oo ka taagan yahay cidda gacanta ku haynaysa gobolka Donbas oo ka kooban 2 gobol oo ka mid ah waddanka Ukraine. waa hagaag waxaan u gudbaynaa warar ku saabsan xiisadda Mareykanka iyo Iiraan. Mareykanka war culus ayaa ka soo yeeray. sidoo kale waxaan idin haynaa Mareykanka oo ku cadaadinaya Koonfur Afrika inay joojiso ama ay ka laabato maxkamadda dambiyada dagaalka la xiriirta ee Israa'iil ka gudbisay. intaanan u gudbin wararkaas aynu ka hakanno qadar xayeysiina. shalay intii la socotay wararkayaga magaalada Geneva ee dalka Switzerland waxaa wada hadal ku yeeshay wafuud ka kala socota Iiraan iyo Mareykanka. inkastoo aan la gaarin heshiis, haddana dhanka Iiraan yiddiil ayaa la muujinayaa. waxaana Mareykanku xalay ay sheegeen in la isku soo laaban doono 2 toddobaad kadib, Iiraanna ay soo gudbin doonto jihada ay doonayso in heshiis loo gaaro. laakiin war arrimahaasi ka duwan ayaa ka soo yeeraya madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka. JD Vance ayaa sheegay in Iiraan weli aysan diyaar u ahayn inay aqbasho qaar ka mid ah waxa uu ku tilmaamay xariiqyada cas ee uu dejiyey madaxweyne Donald Trump, inkastoo horumar uu ka muuqdo wadahadallada u dhexeeya labada dal. hadal uu jeediyey habeennimadii xalay saacado uun kadib wareegii labaad ee wadaxaajoodada ka dhacay Geneva, JD Vance ayaa tilmaamay in kulanka uu ahaa mid togan dhinacyo badan. qaar ka mid ah arrimaha sida wanaagsan ayay u dhaceen buu yiri. waxaynu ku heshiinay in mar kale loo kulmo. si kastaba ahaatee wuxuu cadeeyay in ay weli jiraan arrimo adag oo aan xal loo helin. madaxweynaha ayaa si cad u qeexay qaar ka mid ah xariiqyada cas ee Iiraaniyiinta ay tahay in ay gaaraan amaba aysan ka gudbin. waxaana markaasi uu sheegay in laakiin Iiraaniyiintu aysan u muuqan inay aqbalayaan dalabaadka Mareykanka. wadahadallada u dhexeeya Washington iyo Tehran ayaa sii socda iyadoo labada dhinac isku dayayaan inay gaaraan heshiis ku saabsan arrimaha nukleerka iyo xiisadaha sii kordhaya ee gobolka. mas-uuliyiinta Mareykanka ayaa sheegaya in inkastoo horumar la sameeyey, haddana weli ay jiraan caqabado muhiim ah oo u baahan xal siyaasadeed. waa tahay markana balan eegno xiisadda dhanka diblomaasiyadda ee ka dhex aloosan Koonfur Afrika iyo Mareykanka. intii xusuusata sanadkii hore aqalka cad ee waddanka Mareykanka arrin cajiib ayaa ka dhacday. madaxweynaha waddanka Koonfur Afrika Cyril Ramaphosa ayaa halkaasi booqday, laakiin wax aysan la kulmin madaxda kale ayuu la kulmay. madaxweynaha Mareykanka ayaa waxa uu la soo baxay
warqado iyo muuqaallo iyo dokumentiyo qaarkood been ay yihiin sida hadalka loo dhigay oo la xiriira dhibaatada lagu hayo dadka caddaanka waxa uu ku tilmaamay madaxweyne Donald Trump oo uu leeyahay xisbigan ANC ayaa dhibaato ku haya dadka caddaanka ee laga tirada badan yahay ee waddanka Koonfur Afrika kuwaasi oo sheegaya Trump beerahooda in la xoogay isla markaasna ee la beegsanayo oo la laayo dadka caddaanka ee tirada yar ee Koonfur Afrika muddo dheer ayay maamulayeen waddankaasi waxaana waddankaasi ka jiray nidaamkii midabta koorka oo ugu dambeyntii la soo afjaray dabayaaqadii sagaashimeeyadii markaas oo xabsiga laga soo daayay madaxweynihii hore Nelson Mandela isla markaasna doorashooyin la qabtay xisbiga ANC-na uu ku guuleysanayay doorashooyinkaasi ilaa ay wixii xilligaasi ka dambeeyay laakiin arrintu waxay leeyahay sidaas ma aha dadka caddaanka iyo khilaafaadka la xiriira Mareykanka iyo BRICS bacdama Koonfur Afrika BRICS ay u tahay udub dhexaad ma aha leeyahay arrintu meel kale u socotaa baa leeyahay hasha maxaa leeyahay maqaarka diidaysa meelo daldaloolay ka egtaa Soomaalida hore uma mahday waxa leeyahay arrinta ninkanba loo haysto madaxweynaha Koonfur Afrika iyo waddanka Koonfur Afrika waxay la xiriirtaa dacwadda ay ka gudbisay Koonfur Afrika Israa'iil waxaynu la soconnaa maxkamadda cadaaladda adduunka ee loo yaqaan ICJ waxaa hortaal dacwad Koonfur Afrika ay gudbisay oo Israa'iil ay ka gudbisay oo ay leedahay Israa'iil marayka Gaza waxay ka geysatay xasuuq iyo dhibaato waa in lagula xisaabtamaa Maraykanku laakiin waxay rabaan inay ku cadaadiyaan Koonfur Afrika si dacwadda ay uga laabato waxyaalo badan baa la isku dayay in lagu kordhiyo cashuuraha xitaa madaxweynaha Maraykanka kamuusan qayb gelin shirkii G20 ee ka dhacay waddanka Koonfur Afrika xitaa waddanka Koonfur Afrika oo madaxtinimada ku wareejinaya Maraykanka waxay tahay labada madaxweyne inay inta isku yimaadaan lagu wareejiyo madaxtinimada G20 wuu diiday Trump wuxuu yiri ma tagayo yiri suurtagal waxa ah xitaa Koonfur Afrika in lagu casuumin shirka G20 ee lagu qabanayo Maraykanka hadda laakiin waxa soo baxay war sheegaya in safiirka cusub ee Maraykanka ee Koonfur Afrika u fadhiya uu tagay Koonfur Afrika faylasha oo watana waxa kamid ah Koonfur Afrika inay ka laabato dacwadda Israa'iil aynu eegno wararkan iyo waxa laga qoray waa hagaag safiirka cusub ee Maraykanka u fadhiya Koonfur Afrika Brent Bozell ayaa gaaray magaalada Pretoria iyadoo xiriirka labada dal uu marayo marxalad aad u xun tan iyo markii madaxweyne Donald Trump dib ugu soo laabtay aqalka cad bishii January ee sanadkii inuu weedaartay ee 2025 sida ay xaqiijiyeen ila dhanka diblomaasiyadda oo Maraykan Bozell oo loo magacaabay safiirka bishii March 2025 ayaa la sheegay in mudnaantiisa koowaad ay tahay ku qancinta Koonfur Afrika inay ka laabato dacwadda ay ka gudbisay Israa'iil ee maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda taas oo ku saabsan eedeymo la xiriira xasuuqii ka dhacay Gaza Washington ayaa sidoo kale ku eedeynaysa Koonfur Afrika inay caburiso dadka caddaanka ah ila ka tirsan safaaradda Maraykanka ee magaalada Pretoria ayaa xaqiijiyay in safiirka cusub uu dalka soo gaaray laakiin ma aysan shaacin goorta waraaqaha aqoonsiga u gudbin doono madaxweynaha Koonfur Afrika wasaaradda arrimaha dibadda ee Pretoria ayaa ka gaabsatay inay faalla ka bixiso arrinkaas Brent Bozell waa taageero weyn oo Israa'iil nin aad taageero ah horeyna wuxuu u sheegay inuu ka shaqayn doono xoojinta barnaamijka qaxootinimada lagu siinayo dadka caddaanka ah ee asal ahaan Yurub ka soo jeeda si ay ugu guuraan Maraykanka xiisadda labada dal ayaa sii korortay kadib markii Washington ay musaafirisay safiirkii Koonfur Afrika u fadhi jiray Washington iyo sidoo kale canshuuro dheeraad ah oo 30% oo lagu soo rogay badeecadaha ka yimaada Koonfur Afrika ee soo gaara waddanka Maraykanka arrinta markii way caddaatay safiirka cusub waa nin Israa'iil aad u taageera waxa leeyahay mudnaanta koowaad wuxuu siin doonaa in Koonfur Afrika ay ka laabato dacwadda xiriirka labada wadan arrimaha ganacsiga hagaajinta in la isku danayo labada wadan xagga la iska dhigay warbixintu maxay leedahay mudnaanta koowaad wuxuu siinayaa in Koonfur Afrika ay ka laabato dacwadda Israa'iil ku soo oogtay waynu arki doonaa Koonfur Afrika haddii ay u hoggaansanto arrintaas iyo haddii kalaba inkastoo la leeyahay uma badna Ramaphosa inuu markaasi arrinkaasi uu aqbalo oo cadaadiska ka imaanaya Trump uu u dhig raariciyo waynu arki doonaa wixii ku soo kordhay inta ayaan ku soo gabagabeynayaa saaka barnaamijkii xulashada wararka waana ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka